shirweynahan lagu ansixinayay dastuurka qabyo qoraalka ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda Sheekh Shariif Sheekh Axmed afayeenka baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas inta badan golaha wasaaradaha xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ergada ansixin lahayd dastuurka ururada bulshada kuwa haweenka siyaasiyiin magac weyn ku leh Soomaaliya ahlu sunna wal jamaa safiirada Soomaaliya u matalaya wadamada xiriirka dawladda Soomaaliya ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya xildhibaano qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dalka Soomaaliya shirka ayaa ergada ansixin lahayd dastuurka cusub waxa loogu qaybiyay qoraalka dastuurkaasi fanaaniinta hobolada qaranka Soomaaliya ayaa halkaasi ku soo bandhigay ruwaayado iyo heeso ka turjumaya marxaladda dalka Soomaaliya wasiirka dastuurka arrimaha federaalka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa wuxuu ka taariikhiyay marxaladda la soo mareen dastuurkani qaar ka tirsan safiirada Soomaaliya u fadhiya wadamada caalamka ayaa ay muujiyay qaabka Soomaaliya xilligan ugu baahan tahay midnimo iyo waliba dawlad israacsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wuxuu sheegay in muddo 8 maalmood ah laga doodi doono dastuurkani afayeenka baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna muujiyay dareenkiisa ku aadan dastuurkan in la ansixiyo madaxweynaha dowladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo soo afjiray khudbadihii shirka maalintii koowaad laguna ansixinayo dastuurka ayaa wuxuu ku celceliyay muhiimadda Soomaaliya u leedahay dastuurkan isagoo tilmaamay in dastuurkan uu yahay midka wadamada caalamka ka jihaynaya wadanka Soomaaliya hadii lagu soo xadgudbo ayaa dastuurku wuxuu yahay muuqaalka rasmiga ah ee fasira ummad kasta marxaladda ay marayso dastuurka wuxuu fasiri doonaa marxaladda aan marayno iyo himilooyinka aan higsanayo sidaas darteed dadka loo qolay waxaan jecelnahay inay maskax furan iyo niyad wanaagsan ku abaaraan qodobkood iyo cutub ayagoo midaysanna ay go'aanada ka wada gaaraan 825 ergey dhammaantood waxay mas-uul ka yihiin ama ay matelayaan shacabka Soomaaliyeed dhammaantood ma matelayaan qolo ma matelayaan qolo ma matelayaan deegaan mucayan dhammaantood waxay matelayaan shacabka Soomaaliyeed sidaas darteed ayaa lagama ah inay waalidkooda u gutaan si hufan oo hadallaan gacmaha isqabsadaan insha Allah Cabdiraxiin Cabdullaahi telefishinka caalamiga Home Cable magaalada Muqdisho.